Bulshada Soomaaliyeed oo oogaya salaada Ciidul Fidriga xilli dhammaan geyga Soomaalida laga ciideeyay wadamada Islaamka, ayadoo bulshada qaarkood salaanta hawada u mariyay familiyadooda, asxaabtooda iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Kuwan qaar ka mid ah dadkii lala dhex qaada mikrofoonka codbaahiya. magacaygu waa Cabdishakuur Jamaal Maxamed. ciid mubaarak. waxaan meeshan ka salaamayaa hooyaday Asli Maxamed Xasan iyo aabahayga Jamaal Maxamed Faarax iyo in kastoo muslimiin ciid mubaarak iyo asxaabteeda oo ku nool wadanka Mareykanka kulligood inta ka salaamaya iyo walaalahayga Cabdicasiis Jamaal Maxamed iyo Maxamed Jamaal Maxamed inta ka salaamaya ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. magacayga waa Faiz Ibrahim Maxamed. dhammaan muslimiinta waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. dhammaan muslimiinta meel waliba ay joogtiin waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. waxaan halkan ciid wanaagsan ugu dirayaa aabahayga macaan Ibrahim Maxamed Cumar iyo walaalahayga dhammaan muslimiinta meel waliba ay joogtiin waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair. كل عام وأنتم بخير. مقعي وناصر حسن معو ما شاء الله ما تأد بقى وفرح سنة أنا كسر خيب قلو مناسبة عيد الفطر قاعد فرحة بدن ولا عليه المسلمين تدمان وأمهم بلينا يا عالم كمل على المشي كجوجان عيد سعيد عيد سعيد. maanta waxaa ka soo qayb galnay masaajidkan isku haysiga islaamka salaadii ciid fidriga waa soo gudanay. magacaygu waa Istar Saleebaan Xaashi. waxaan halka ugu hambalyeynaayaa dhammaan inta muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. bismillaah magacaygu waa Samiir Aadan. waxaan halka ugu hambalyeynaayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhair. ciidan ciideeda kala nabad bashbash. saaxiibteeda waxaan salaamayaa Amiira iyo waxaan salaamayaa saaxiibteeda kala Iqra. sidoo kale kumanaan qof ayay u suurtageli weysay inay salaada Ciidul Fidriga ay ku tukadaan masaajidka isbahaysiga, ayadoo cariiri ka dhex jira bulshada awgeed masjidka hortiisa ilaamiyadaba u suurtageli weysay bulshada qaarkood inay ku tukadaan masjidka isbahaysiga. iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta